السلام عليكم. waxaan maanta barnaamijkan kaga hadli doonaa insha Allah tubaakada iyo nikotiinka. Nikotiin waa kiimiko si dabiici ah looga helo dhirta tubaakada. Walaxdan ama shaygan waxa laga heli karaa kuwa ay ku jiraan tubaakada sida sigaarada kala duwan iyo tubaakada la ruugaba. Waa maado dadka aad u qabatimaan, nooceeda ugu saafisanna waa mid aad u halis badan oo dhimasho keeni karta. hal dhibic oo dareere saafi ah oo carabkaaga taabata ayaa ku dili karaa. run ahaantii saameynteeda dilka ama dhimashada leh ayaa ah sababta nikotiinka loogu isticmaali jiray ayaan dilo dabiici ah muddo 100 sano hadda laga joogo. muxuu nikotiinka u yahay mid qabatin leh? markaad isticmaashid waxyaabaha tubaakada ay ku jirto, nikotiinka wuxuu galaa samabadaada, wuxuu raacaa dhiigga isagoo degdeg u gaara maskaxda, wuxuu ku sameeyaa jirka bini'aadamka isagoo kiciya nuuc ka mid ah borotiin dareemaha ku jira maskaxdaada, midkaasi oo lagu magacaabo nicotinic acetylcholine receptor. marka dareemaha borotiinka uu firfircoonaado, waxaa soo daysmaya dheecaan kordhinaya garaaca wadnaha, jirkana awood u siinaya inuusan daalin. dheecaankaasi kiimikooyin kale oo ku jira jirka bini'aadamka waxay cakiraan xididada waaweyn oo dhiigga qaada, garaaca wadnahana aad buu u kordhaa. dareemayaasha waxay ku soo dayaan habneerfeedkana dhexe jirkeenna dheecaan lagu magacaabo dopamine. dheecaankaasi oo kaa dhigaya wax marqaansan, midkaasi oo wax ku sii daraya dheecaanadii hore, mirqaan cirka galay dheh. marqaankaasi dareenka farxadda ee nikotiinka uu keenay oo ay la sii jirto ruugitaanka tubaakada ama sigaar cabista ayaa ah waxa ugu weyn ee sababaya in nikotiinka uu qabatimo qofka mar kasta. dareenkaasi raaxada mirqaanka leh ayaa si dhaqsi leh u baaba'a kadib markii nikotiinka uu galo marinada dhiigga. bixitaankiisuna wuxuu kugu reebayaa dareen hoos u dhaca iyo daal fara badan. dareenkaasi hoos u dhaca ayaa noqonaya mid lid ku ah kii marqaanka iyo raaxada gelinaya maskaxda, waana waxa sida gaarka kuwa sigaarka caba ku keena inuu qabatimo isagoo markiiba sigaarka la shitaa markii uu dhammeeyo midkii hore. shakhsiyaadka sida joogtada u jiida ama u nuuga waxyaabaha nikotiinka ay ku jirto ayaa la qabsada saamaynta daroogada, taas oo keenta inay is arkaan mar waliba iyaga oo shidaya ama ruugaya si ay marqaan u helaan. qofku wuxuu galayaa wareeg dareen dheer ah oo baaxad weyn oo soo noqnoqonaya, midkaasi oo gaarsiinaya heer uu la qabatimo nikotiinka. inaad qabatinto nikotiinka waa mid horseedi karta dhibaatooyin caafimaad oo khatar leh. dadka isticmaala waxyaabaha nikotiinka ay ku jirto waxay halis ugu jiraan khatarta kansarka, cudurrada wadnaha, kuwa sambabaha ku dhaca iyo dhiigkarka. waxaa aad u adag in qofka marka uu qabatimo maaddadaasi inuu joojiyo balwaddaasi halista ku ah naftiisa.